gabar si kasto daacad ugu tahay kugulama joogayso si kasta oo aad deeqsi u tahayna kugulama joogayso si kasta oo aad u hadal macaan tahayna kugulama joogayso si kasto u qurux badan tahay kugulama joogayso si kasto xoolo adduunyo iyo aqoon meel sare ka joogtidna kugulama joogayso gabari hal shay oo kaliya kugula joogi kartaa waana haday iyadu ku rabto hadaysan ku rabin inta wixii ka dambeeyay waxaad iska khasaariso de sadaqana kuma ahan xoolahaagina waa ka lumen qalbi jab baad ka qaadi doontaa rag badan oo xaaladan ku jira maalin walbana isqasbaya say doontaa qurux badnaato siday doontaa kuula wanaagsanaato mar inaysan ku rabin miyaysan kugu filnayn qof kuleh kuma rabo oo leedahay anaa ku raba haye haddaanan anigu ku rabin rabitaankaaga keligii muxuu adiga ku tarayaa kula tahay anigu waan la yaabaa dadka qaarkood maskaxdooda siday u fakaraan qof aan i jeclayn maba jeclaan karaba waxaaba igu filanba qofka si kastoon u jeclahay hadduu yiraahdo maanta ay u ka dambayso kuma jecli halkaasuu ku go'aa bartuu igu jaray baan kaga dhaqaaqi haddaadan sidaa yeelin waqti badan baa kaa baxaya kharash badan baa kaa baxaya enerjigaaga baad iskaga luminaysaa waxaad tahay qof sacbacaad ku lisaya meeshaad weel u dhigan lahayd aakhirkana waxaad ogaan in wixii aad intaasoo sana daba ordaysay mararka qaarkood kaysaskay soo gaaray ka mid tahay in gabari ay nin la socoto ninkana uu iyada isku qasbayo ma ahan rabitaan ay u haysa aysan ahayn waxa ay ka qaadana mid kale qalbigiisa ay rabto inay kasbato inay hadiyada ugu gado oo casho ku geyso oo ku koolkooliso oo xataa marmarka qaar ba waxa dhacda $10 rag inta laga qaado in nin kale faciisa iPhone loogu iibiyo waxyaabaha isoo gaara ee cadaymaha cadcadeen hayo haddaad arki lahayd waqtigaaga iskaga maadan lumiseen gabar kule kuma rabo haddaynan ku rabin waa caadi qalbigana lama qasbi karo waa inaad tahay nin rag oo go'aan leh quusan kara dhaqaaqi kara war adeer rag adiga kula mida oo intaasoo sano gabdha soo qabay ba iyagoo jacayl u qaba kuma rabo ay tiri darteed kaga dhaqaaqay adigu waxaad ka hadlaysaa mid aydaanba weli sariir wada seexan mid aadan cuntadeeda aqoonin carafteeda aadan garanayn quruxdeeda oo dhammaystiran sidii hooyadeed ku dhashay aadan arkin damiirkaagu waa inuu keensado inaadan iyadana ciriiri gelin suuqeeda iyo danaheedana aadan ka qasin adiguna naftaada inaadan isa silcin dumar waa buuxan markaad maskaxda faqiir ka noqoto markay dhanka dumarka noqoto oo aad noqoto mid rabitaankiisu meel walba iska yaal ragga qaar waxaa jira internetka markay saa u galaanba gabar kastoo xoogaa yaro qurxoonba markay arkaan qofkii waa ku jecelahay inaan ku guursadaan rabaa gabar kastoo qurux badan waxaad ogaataa mid dhareerka daadinaya meel kasta taagan gabadhu ninka keliya ee ay sharfayso ay qiimaynayso ixtiraam u hayso waa ninka go'aankiisu adag yahay waxa uu yiraahdana ka dhabayn kara haddaad laakiin sii barido oo maalin walba daba taagantahay kabuhu way kaaga dhammaan sidaasaad maalinba meel bajaaj uga raacaysaa hadhowdii cuntada aad u geysay iyo wixii aad hadiyada u geysay soo noqodkaaga haddama haysata waxaa baawar ku soo raacdeeday rag badan oo silaca iyo rafaadka noloshooda iyagu u dooray baa jira gabadhaasuna wax lugay kugu leedahay ma jirto mar hadday warkeeda ku cadaysay adeer waqtigaaga iyo lacagtaada midna ha iskaga khasaaran intaa wixii ka dambeeya haddaba dhammaanteen intaynu podcastgan mid ku xiga dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh